nin kasoo jeeda gobolka Rajasthan ee waqooyiga dalka Hindiya ayaa hurday 300 oo maalin oo xiriir ah. Waa 42 jir magaciisa lagu soo koobay Burqaram. Waxaa la sheegay inuu la dhiban yahay xanuun naadir ah oo la yiraahdo Axis hypersomnia ravan oo ay walaalo ahaayeen. Wuxuu horay u hurday 6 bilood sida caadiga ah. Waxaa lagu taliyaa in la hurdo 6 ilaa 8 saacadood habeenkii, balse Burqaram wuxuu jiifay 25 maalin oo aan kala go' lahayn. cudurkan hurdada wata wuxuu ku dhacay isaga oo 23 jir ah. ninkan isaga oo ku sugan xaaladan wuxuu gadaa dukaan uu leeyahay. kaliya 5 maalin ayuu bishii ka shaqeeyaa. markasta uu hurdo la dhaco waxaa ku adag inuu soo kaco durba. qoyskiisa ayaa sheegay bilowgii hore inuu jiifi jiray maalintii 15 saacadood, balse sanadba sanadka xiga waxaa kusoo badanaysay hurdada. markii dambe wuxuu gaaray heer ah inuu seexdo 20 ilaa 25 maalin. qoyskiisa ayaa sheegay inay quudin iyo qubaysba isugu daraan inta uu hurdo. waxay intaa ku dareen in mararka qaar isaga oo shaqo ku jira inuu seexdo. waxyaabaha kale ee uu ka sheegto waxaa ka mid ah madax xanuun daran. jirkiisa ayaa aad u daala inta uu soo jeedo. xaaskiisa iyo walaalkii waxay ku rajo wen yihiin inuu ka caafimaadi doono mushkiladan oo ay noloshiisa caadi kusoo noqon doonto.